بسم الله الرحمن الرحيم. الثناء لله. رمضان كريم. عاوة halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ay naga noqotay lagama maarmaan inaan ka hadlo duruufaha ku gadaaban gobolkan Awdal iyo Salal. waxyaabaha baryahanba bulshadu ay isla dhaxmaraysay bilahan u dambeeyay waxa kamid ah xasarad ka taagan deegaanka Zeylac kaasoo ah Zeylac haddaan taariikhdeeda guud ahaan dul maro magaalooyinka ugu facweyn bay ka mid tahay geeska Afrika waa halkii diinta islaamka soo degtay waa meesha qura ee Maka Madiina al-Munawwara laga reebo caalamka ku yaala Masjid al-Qiblatayn iyadoo taariikhahaasoo dhan leh oo badmareennadii adduunka u horeystay Ibn Battuta qarnigii 14aad iyo qaar kale oo ka horeeyayba ay qirayaan ayaa waxa jirtay markii 60kii Somaliland iyo Soomaaliya ay isku biireen ee halka dawlad noqdeen ilaa 2013 maayarada soo mara degmada Zeylac waa la magacaabi jiray dawladda dhaxana soo magacaabi jirtay 2013kii waxa la gaaray anigoo soo koobaya taariikhaha iyo warkaba in xubno 17 ka kooban la soo magacaabo la soo doorto shacbigu ay soo doortaan iyadoo xisbiye kale ururo markaa tartamayay ay ku soo bixeen magacyadooda kamana tagaysa dadka deegaanka ee footeynaya shakhsiga ay isleen waxay qabanayaan inay soo doortaan si kastaba ha u dhacdee beeshii u badnayd magacaabista ayaa ka go'an saydhay dee waa dad wada degan oo iskaranaya aakhirkii waa la xaliyay waa loo fariistay sidii maayar loo dooran lahaa ama gudoomiye degmo waxa ku soo baxay nin la ilaaho Xuseen Iidle Barkhalle oo aqoonyahana waaya araga u dhashay deegaanka inta badan noloshiisana ku soo qaatay degmada Zeylac kolba heer uu ka joogaba mar uu ku jiro deegaanadii hore guddiga ahaa iyo horumarka degmadaba markan nasiib wanaag wuxuu ku soo baxay gudoomiyaha degmada Zeylac ama maayarka degmada waxa isweydiin leh 1991 ilaa 2013 wixii qabsoomay ee degmada u qabsoomay wixii maayar soo maray hadii la isku geeyo inta qabsoontay 40 sano Xuseen Iidle joogay tuulo degmo hadii taa adeegyada bulshada waxbarashada caafimaadka wadooyinka ceelasha biyo qabadka hor dhan kasto la taaban karo wax qabad haddii ay isbarbar dhigmaan Xuseen Iidle waa dambiile haddii wax qabadkiisu afar jibaaran yahayna mataasay dambi noqotay Xuseen Iidle guddiga deegaanku haddii ay u fariistaan oo sharci ay u fariistaan xaq bay u leeyihiin inay bedelaan waana wax dastuurkeenu ogol yahay laakiin maxaa meesha yaala maaha wax ka yimid deegaanka laba nin baa jooga deegaanka Zeylac nin dadku ooyaan iyo nin dadku ka ooyaan mushkiladana waxa wada ninka dadku ka ooyaan laakiin Soomaalida hore mahmaado waxa tiri daayeer dhici waayay laan adag buu haystaa waa ninka la yiraahdo Magafe ee barasaab iyo ku xigeen iyo police iyo ciidan iyo ilaale xeebeed ba ka sareeyay waa ninka customerska joogay wasaaradda maaliyadda ku magacawday isu duwaha dadkii soo xaga bixi jiray ee reer Djibouti maantada aan hadlayo ee Ramadaan afar ay tahay ma soo xaga bixin waa ninka darteed ciqaabta ka haysata taariikhdu waxay qoraysaa ninkaas intuu joogay dad danyara oo xanuunsanaya ama uur leh ama dhaawacyo gaareen oo uu diiday inay gudbaan haddaan lacag bixin iyagoon lacag bahaysan inay meesha ku go'een oo xabaalahooga ay ku yaalaan loo yacdo oo wax taariikhdu qorayso ka daro dib dalbay noqoto wuxuu isku dayay bil gudaheed 2 jeer inuu soo abaabulo wax u eg inqilaab oo sharciga baalmarsan oo ah inuu iska hor keeno beelweyntii Ciise beelweyntii Gadabursi markuu iska hor keeno waay in Gadabursi dhaxdiisa iska hor keeno uu gudoomiye ku xigeenkiisii ana ku cumaamadee ku dhawaaq oo la doortay waa nasiib daro sharciga baalmarsan tahay sharci waa lagu bedeli karaa sharci buu ku yimid gudoomiyuhu waa la sharci bana lagu bedeli karaa laakiin mu'aamarad iyo lacagta ummadda oo lagu isticmaalo lagu ma bedeli karo di sharciga la baalmarana de wax ka daran baa imanaya haddaan dib ugu noqdo intaan ka aqaan Zeylac
waxa igu horeysay 1985 waxa kastamka joogay sida ninkan oo kale nin dhagala oo mareexaan ah oo aadan dhagoole leeyahay aadan dhagoole saacadu doonu soo toosay wuxuu doonana uu sameeyay halka waxa mari jiray gaadiid fara badan oo raashin iyo bagaas ka soo qaadan magaalada Djibouti oo u socda Hargeysa adigu Soomaaliland oo dhan oo waqtigaas Soomaaliya kamid ahayd ragii halka maray waxay ku kaliftay baabuurtooda inay xuduudda kala tallaabaan ku soo dagaal galaan oo ururka islaamku biiraan tiitu ka daran baa taala meesha dhagoole cashuurtan buu kolba soo doono ku yeeli jiray iyo taadi baabuurta oo raran saacado badan ay joogaan meesha kan wuxuu keenay ciidanka iyo wasaaraduhu walba wasiiriye waxay leedahay maamul iska daa wax kale taliyihii ilaalada xeebta ee deegaanka u dhashay magafa soo bedelay shaqaalihii wasaaradda maaliyadda magafa soo bedelay kalluumaysigii danyarta ahaa ee deegaanka ilaahay ku abuuray uu kala eriyay maanta wuxuu marayaa mar labaad mar saddexaad inuu isku dayo inuu maayarka si sharci darro ah iyadoo ay wasiirana meesha tageen dhowr jeer waxaan u maleynayaa dhagoole bikh ma maraysaa arrintu dawladdu hadday u dhaga nuglaan weydo tabashada shacbiga waxaan imika ku hadlayaa codkooga qurba jooga beelaha degan awdal iyo salal ee dhibaatadu sida tooska u taabanayso maanta ninka maayarka ah waa loo ooyay lagama ooyo magafasa waa laga ooyay cirka dhulka ka ooyay laakiin awood xagga dambe ka riixaysa jirta taahdan inta kaga gudbo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil waa madaxweyne ku xigeenka waxay ahayd sida dastuurku qorayo madaxweynuhu wuxuu eegmaday inuu qabto wuxuu ahaa dadkii tirada yaraa ee xisbigii kulmiye ku biiray ee gobolkan awdal ka soo jeeda Cabdiraxmaan waxa ugu horeeyay oo 2003 iyo 2003 doorashadii dhacday oo ku xigeen u ahaa madaxweyne Axmed Musharax Axmed madaxweynaha maanta Cabdiraxmaan Cali waati uu daahir yeelata ku guuleystay markii dambe loo tababashaysanayay xisbiga cidii musharax u noqon lahayd ee burcale iskugu tagay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil baa ku soo baxay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil faaliya farsamo markii la isku dayay waxay noqotay lagama maarmaan ninkaas oo dadkiisu degan yihiin caloosha Soomaaliland in la qaato Cabdiraxmaan Cali iyo saaxiibadiisa golaha dhexe ka tirsanaa way ka holeelan iyagoo ka cadhaysan wayna ka bixeen xisbiga kulmiye nasiib darrada ninkii ugu nasiib badan baa hay ugu adkaysi badnaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylici nasiib darrada maanta haysata ragiiba intay kulmiye laga dhigay lagu soo celiyay maantana Cabdiraxmaan loo dhageystaa oo wax laga maqlaa halka sartu ka qudunteena afka kala gaban mayne dawladihii hore Soomaaliland soo maray ee Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo Daahir Rayaale Kaahin ma lahayn wasiirada xukuumadahaas marana wixii soo dhacay waa la garanayaa wax ka daran baa dhici daliilna waxa shalaa ka dhacay Hargeysa askari intuu taliyihiisa dila iska taga waa astaantii aanu soo aragnay astaamihi aanu soo aragnay qaar kamid ah weey intaanay tala faraha ka bixin aan waxaan leeyahay dad xog ururin ah ama xog baarisa in loo soo diro gobolkan awdal iyo hawlihiisa waxyaabaha ka socda waxa kale oo halkan ka sheegaya hay'adaha la sheegay xuquuqul insaanka ee Soomaaliland marmar idaacadaha iyo warbaahinta aan ka maqlo gobolkan awdal iyo salal kama shaqeeyaan meelna jiraan meel lagu sheegayna ma arag tacadiguna aad buu fara badan yahay shaqada dadkuna aad buu fara badan tahay dadkan masaakiintaana codkooga lama maqlo laakiin waxaan filayaa marka wax qarxaan u baa la maqli doonaa intaani balaayo looma yeedhe aan waxa soo jeedinayaa in dawladdu indha gaar ah u yeelato dad dhexdhexaada oo xog ururin ay u soo dirto ta kale waxa ay muuqda mas'uuliyiinta oo kamid yahay taliyaha qaybto ee aan garanayn shaqadooda tababarna aan u lahayn asluubtii sarkaalnimada ka maqan tahay sida sarkaalkii yimid oo kale ila hadlay ila hadli lahaa anshax iyo discipline askareedna uu ka muuqdo nin garanayaan ahee si wanaagsan aan wada hadli lahayn una macaamil lahayn laakiin awood sheegasho taa Zeylici oo kale oo aad ku tagrifal awood xafiis iyo suxuunada adeegsasho xilka aad u hayso ummadda
ayaa ka muuqata waxa kale halka astaan ka muuqata waxa cagta lagu hayaa oo la ceyrsanaya waxad muddo taageerayaasha xisbiga kulmiye inay yihiin waxa ceyrsanayaan waa mas'uuliyiinta dawladda oo ay labadan ninkow ka yihiin ninka jooga customka Sayrac iyo ninkan taliyaha qaybta booliiska cid kale anigu kuma eedeynayo waxa la ceyrsanaya oo subcad xumo loo sameeynaya xisbiga kulmiye waxayna u dhagan ninkan horta qaybtu wuxuu aad ugu dhagan lagu leeyahay xisbiga wadani oo ka arkay astaamihiisa nin kasta oo kulmiye taageero wuxuu leeyahay wax kala isku haleynaysaa waa dad shicba wadadkii dalka deganaa ilaahay ku beeray maxaa dad dibadda ka yimid oo waraaqa ku qaatay sida warqadaha Yurub aan ugu qaadanay jinsiyadda maaha waa dad deegaanka markaan waxa soo jeedinayaa taliyaha ciidanka booliiska waxaan ka codsanayaa inta aanay arrintu faraha ka bixin inuu dad aqoon leh u soo diro arrintan iyo arrimo kale oo fara badan oo jira guryo la kala iibsaday 40 sano ka hor ayaa dad lagu xirxirayaa dadkii mulkiyadaha u haystay sharciga u haystay ee maalgeliyaasha taasoo la leeyahay gabadha sheeganaysa annaga ubad noo haysaa uu leeyahay taliyaha qaybta afkiisa ku ballaarinayo waxaasna wax la aqbali kara maaha wax sharciga waafaqsanna maaha way arag baan u nahay in badan baan u soo joognay wax badan baan dib u laqayaan caawa canuufteeda dib u cushanaya wasiiradana waxaan leeyahay wax badan ayaa xisbiga kulmiye lagula dagaalamaya oo taageerayaasha lagaga eryayaa haddaad ugu tala gasheenna ha ku socoto haddaydan ogeyna waxaan codsanayaa taliyaha qaybta booliiska wasiirka arrimaha gudaha wasiirada intaaba waxaan leeyahay waa in dhaganuglaan lagu eega arrimaha xasaasiga ee ka taagan awdal iyo salal iyo dadku waxyaabaha ay isku dhex marayaan wassalaamu calaykum